Furitaanka garoonka diyaaradaha caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ee Barawe waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo uu horkacay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo uu horkacay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Waxaa sidoo kale munaasabadda furitaanka garoonka Barawe ku sugnaa xubno ka socday Midowga Yurub iyadoo Midowga Yurubna uu bixiyay dhaqaalaha lagu dhisay garoonka Barawe. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa isna sheegay furitaanka garoonka Barawe inuu muhiimad weyn u leeyahay shacabka Shabeellaha Hoose. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed sheegay furitaanka garoonka Barawe inuu kaalin weyn ka geysan doono horumarka iyo kobaca dhaqaalaha Koonfur Galbeed, isagoona sidoo kale xusay inuu shaqo abuur badan u sameyn doono shacabka Soomaaliyeed. Gabagabada munaasabadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa si rasmi ah xariga uga jaray garoonka diyaaradaha degmada Barawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyay. Ammaanka magaalada Barawe ayaa maanta si weyn loo adkeeyay, waxaana wadooyinka iyo xaafadaha Barawe lagu arkayay ciidamo fara badan oo kuwa dowladda federaalka ka tirsan iyo kuwa AMISOM oo nabadgelyada ilaalinayay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.